sheekada yaab kale ilaa hata la liyaabiye in dadkan inta iyo ku dhamadaayeen anjarna dad meelaha ku bahi oo sheegay in dhibaatada beertaas ka jarta iyo lan walbana la sheegay midis meelo seed ari ilaahay in la kulantaan sun waraaba waaya 900 oo ruux qof waaya marka yeesuka ka dhamadaan sunka gudaan ka dhiyaan imsa naftiyo meelo ka waayeen waaya kulan fayl guulatooyna sharafta leh ha ka dhawaada falanqeyn ka saabsan dhibaato hiligan ku teegan dalka Kenya taas oo nagatay hadalhaynta in ka weyn saacado in ka dambeeyay dunida oo dhan iyo gudowa ay tamadilo ku reebay dagaalka ku dareerahay dalka Suudaan maalmo ka dambeeyay sidaan la dareerasan dalka Kenya wali ka jaray arrin ku saabsan in dad boqolaal qof ah iyo aan dhamadan baaha ana soo la sheegay in sabab hayti wadaad Christian ah oo kaniisad ka taala dalka Kenya mas'uul ku hay dad hirtisa Yusuf Amar in baaha iska dilaan qasaaraha amuusha ilaa hata iyo la sheegay in iyo deerti ilaa 9 qofood madila ka dara 17 qof oo hata la hasaare taasoo tirada ka dhakaasa amuushada 9 qof in geerida iyo hata maraayid ilaa hatana dareerta samatibiyuka ama raadiyuka dad kale lankan sababan hay ilaa 34 qof iyo taabaayin laha ku heli beer ka taala magaalada Malindi ee dalka Kenya taas oo wadaadka laha qobadii u lahaay sida la sheegay meelasna dadka hirtisan badan ay roogeen sheegayna si on la kulmaan nabi Ciise in iyo baahan dhamadan taas oo dadkeena talaabadaas iyo qaadeen Paul Magis oo hogaamiyaha kaniisad Good News International George yalla sheegay inuu sababan hay dadkaas in iyo dhamadan oo guutaantiyooba iyo rahan fariintu usa ka hogaamiye hayti in baaha iska dilaan si oo la kulmaan nabi Ciise wali la tilmaamay in ilaa hata dareeraha ay samatibiyuka dad kale oo la rumaysiin in meelas iyo ka jiraan oo iyo ka amudeen sheekada yaab kale ilaa hata la liyaabiye in dadkan inta iyo ku dhamadaayeen anjarna dad meelaha ku bahi oo sheegay in dhibaatada beertaas ka jarta iyo lan walbana la sheegay midis meelo seed inuu ka deeday dad ka dhamaday taasna sheentay in dadka amuushadiyo meelo ku sii badata dawladda iyo waxa ku saartay arrinkan hataba faranqayntan oo saaxiibkay Ali Gibo kaleey bal aliyo hadda waa dawladda arrintan oo maalmooyinka dambeeyay teeganayti warbaha ku saartay warka dawladda ku bahay meel ka sheeg awayso iyada ma hasantaa dhacdadan guud ahaan caalamka may banaagtay markaas eedan ku yaaba waliba dadtaradii intaas deeras inay la era ilaasan ku dhamadaasan nabi Ciise kulmaasan wallan aantan يعني ما يبغى لا ركور مبدأ إيدن أضو جودها مركا وأنا صدقاً ما يبغى وزير كارماء جودها الدلك كينيا ولي بيا وشيء أنا العددي يعني إنك دورنا يتني الدلك أسبوعية أو مصيبة أو ولي بيا أريم ديميت مسا أريم مركز الهريرة نوع عسى مركا صدقاً ولي بيا للشيء إني أريم فكر كدينات يوين أريما مركز إيرن قط أضك مركا برشوين كشلدون عالم كنا سكوي ولي ما يبغى لريدة كسر كوليجيد ولا تماما ولي برانا فكر كدين بلا فكر كان كأضك الدنيا ده تي قفكا وسوال آمن لو مسوال وس آمن كتناقم من سورة الجرا يعني أريما إيرن أضك مركا وزير كأريما جودا الدرك كينيا ولي بيوشيا جانا إني إلا هذا ميدا يدولي بدأ نفتيه ولي هرس كجرت إني له قدرات كوريا قدرات مسيرة كديري سو كان ولي بالش دول كده وقتها كديري إني سمركاس سكوير يسولي كي سدحبول إلا بعد هكتر مركز سكوير مركا ما يبقى درهم كورتا ويسو دول مركز سدحبول إلا بعد هكتر سكوير يعني دول مركز بهدي درهم كورت ميل مركا جودهان ولي بالليا وحالستك بدنايت أو فكر ديمة وليبا عالم كوكوليا وجارهان أفريقيا وليبا دلك كينيا كوليا ما يبالي عادين كياب بدنايت ها واي دولة لانكن ما لشيء إنها هيرتي بل كينيا مدبه روج ده أنا أفتكر أرق ضد يبرشوين شيء بل لكنك النوع وكلات أيو ضدك مدي على الفير ده مسا ده نجيء قصة مثلا لكن شو بل كورن أرنتي يو سدي لكن تهلينات إيه بس ده وشو ورت كينيا مركز سياتا ولي بأرجاسة ده لكن عادين إيه ترى بدن ولي بان كبدنا لكن الدين تا إيه لكن شل دنيا
una muslimin inayna ilaahay muslimin ee dhakaya mahadna laakiin dadka muslimiinta aan hayna markaad aragta walyaaba aad liyaabto ka aragaasa tusaale ma aragaasa oo jidka isku maraasa ama saado isku socota la isku boora aragaas geed haysad oo leh ilaahay aan soo juuday amse geedkan ilaahay inga yatuwaay geedaga ka dhagay ma aragaas geedagaas markaas ku cibaadaysada amse inta bashana amse ilaahay ku inga usileey marka yaani waxyaaba oo maskaxdaada markaas qalqal geliyo ma baata bani aadan leeta qofkaasna bani aadan leeyo laakiin farqi siin dhahay mayba u soo markaas aamisnaad iyo meel ay raayusin sheegay psychology walaal dadka shal aaminsan yahay shal duunya marka keen markaad roogta taas leeyahay dad oo markaas xitaa dhanka salaado marka la dukado oo kale dad oo markaas saddex saac hiraaban la aadamo salaada tukada ninkale salaatiyatan ma og marka guud ahaan dalalka iyo waliba diimo eedan shal duunya dad isku boorayo oo markaas wali in boorana oo inoo kale ilaahay tuuga ilaahay uu abuuray oo qofna ku yireenan hayna markaas liin iyo raadiyaan ilaahay tuugayna oo cibaadaysayna deewana booreen argaas awaso dhacdada ayaa waliba may baan nagatay dhacdadii anka yaabka bandhaa dalka Kenya ka dhigada waliba iyo oo la xiriirta arrimo diimeed saasaata waliba la sheegay awaso 1978 dalka Kenya dhacdana oo in markaas ka dhigada waliba taas waliba sabab hay wadaad Christian ah oo markaas dad xire haysaday oo waliba la sheegay in markaas eri ilaahay in la kulantaan sun waraaba 900 oo ruux qof marka yeesuga ka dhamadaan sunka gudaan ka dhiyaan imsa naftoon bay la ka waayeen sidoo kale waliba la sheegay boqolaal kalena markaas oo ka dhaawacmeen laakiin 900 oo qof oo markaas dawladda ka diiwaan geliyay gudaha dalka Kenya 978 eeda ma wadaadkaas Christianka dadkaas ku 978 dhibaatada intaas ay ka jeesay Kenya maylka magaca jiray marka magaca oo jiray James oo aan dhaladay dalka Mareykanka oo Christian wiin ahay oo xilligaas dadka reer Kenya eedan aaminsanay hatta aliyo mayleeyaa lama boqoltum isida qof iyo ururka bisha Kenya induwan galan intii oo dhulkan 320 hektar ah iyo ka duugayeen oo wali ka dhax jira oo la waaysan waa naftarja dhawaato kale waliba meel erakore oo fikrada noocan ah yaani dadka intii oo markaas meelaas halas ka jarta amse dhibaatooyinkaas walaasho sameyn dhibaato ka jarta eedan adag taa leere iyo markaas ka bes garayaan amse markaas oo fiiriyaan jinti aaminsiin amse wadaadkii markaas walaan sheegay inuu aaminsiin oo hadii xitaa leere dhulkan gala wilihan ku bateen waa tan hadda dheeyay oo kale marka dhibaatooyinkaas oo kale caalamka ku dhiyaasay laakiin gudahan Afrika dalka Kenya yanaagati dhacdadii hadda aweeso sanadii la dhaafi waliba cibaadad diineed wala leeyni markaas maarmana ka dhiyaan umsa ka badada guuridaal sheekadan yaabka la hataa arinta koorta may kuma dahay mayl dad meel seeday in iyo samatabiyan dadka oo dhibaataysanaya iyo naftirkii oo dadkii aragay si oo la kulmaan ilaahay darto nisdiri iyo yaab ka biiran dadkii meel ka amuuday aliyo iyo gargaar sida iyo gana raaxan ya bab ibaadada ku qeybada doorkii si garan baaha si aan ka dhamada iyo beel raadiyahay marka kiiskan lanka ka dambeey oo wadaadka Christianka ah madila hiri booliska ma uusan sheegay ani war shugul ay usan kalahayn kaniisadiisina 40 sano la dhaafay aan shaqeeyaan oo la rabo hiri laakiin booliska ma sheegan in arintaas iyo beenata oo dadka la badbaadi iyo sheegan oo 34 qofood tan kale may kumada aliyo oo sheekadan ka dhajarta awlaadeera ka jarta dadka baahada meela ka dhamadeen oo waalidiintu inta xaqaaden beertan oo lankan kaniisadan ka taala iyo sheena meel iyona ka dhamadeen marka dawladda ilaa hata ma sheegday in wali samata biyo iyo socota dhul 320 hektar aan square wali ka jarada tumadani baad goob ku dareerahay aweso eeda ma santa sada markaas xogtan update kan soo bixin update kan ila dareersidii barnaamijkan haaf meeran waaye inta gabagabaan saaxiibkay Ali ya qeyb oo kala hay oo in badan Kenya ka noolay hatan warbixintan ee la falanqeeyay dhanka kaamirada timweyne kuma nagaan intii oo ku kulmo doona warbixin taha tawad warbixin noocan ay waliba guudaan dalkii dibadda ka dhiyaw
wali faale mas aragtida qaybta comment in kare insha Allah.